بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وزيرك وزارة قرشينتا iyo dhammaan xubnaha golaha wasiirada halkan jooga hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga dhammaan stakeholders ka soo qayb galay hawshan daafurka amba dubeegista qorshaha qaranka saddexaad. runtii anigu ka wasaaradda xanaanada xooluhu sala socotaan waxay ka mid tahay lafdhabarta dhaqaale ee waddankan uu leeyahay. si aan u gaadhno qorshaha loogu talagalay amba qorshaha qaranka ee loogu talagalay waxaa loo baahan yahay ugu horeysa waxa weeye in horta mudnaanta la siiyo habka iyo systemka wasaaradda xanaanada xooluhu iyo qorshayaasha waxyaalihi ay ka midka yihiin hadday tahay boolisiyadii hadday tahay shuruucdiiba markaad kuwaa la dhiso ayaa la gaari karaa deedna hamigii halka doonayso. marka runtii saa ka muuqata sectorkan productionka wasaaradda xanaanada xoolaha hogaaminaysa 70% sa report ku soo baxay ee wasaaradda xanaanada xooluhu gaadhay. laakiin waxaan qabaa 70% wadaniga priority wasaaradda xanaanada xooluhu waa labada qodob ugu muhiimsan waxa weeyaan in la helo calafkii xoolaha iyo daaweynta. calafka xooluhu wuxuu u baahan yahay in la isku tashado qorshayaal waaweyn laga gaadho aan calafkii beerano la soo baxno xoolaheenna u kaydino xilliyada abaarta aynu kaga baxno. in la soo dhoofiyaa mar walba caqabaday leedahay qarash beerada ay leedahay laakiin inaynu isku tashano oo waxyaalaha runtii aan priority-ga siinayno la oran karaa. laakiin caafimaadintu sanadkii u dambeeyey waxaan ka gaadhnay runtii guulo la taaban karo aada u fiican. waxaan qabaa 80% marka la eego intaa wasaaradda xanaanada xoolaha aan joognay oo markii ugu horreysay ilaa 50 goobood la gaadho oo la geeyo dawooyinka xoolaha ee caafimaadinta. taas waxay ka turjumaysaa markaa 70%-gaanu gaadhnay labadii sanadii barkii soo socday waxaa noo qorshaysnaa inaan 3,700,000 oo neef daaweyntiisa in la gaadho. anagu waan dhaafnay 3,800,000 baan gaadhnay. laakiin calafka xooluhu wuxuu u baahan yahay wanagaa ku jirnay aad arkayso kulliba caqabadaha inagu xeeran. calafka xooluhu wuxuu lafdhabarkii ku yahay inay xoolaheenu badbaadaan oo dhoofka xoolaha ee maanta ku tiirsannahay quality-giisa iyo tayadiisa waxay ku xidhan tahay inay helaan xoolaheenu inay helaan calaf ku filan oo nafaqo leh oo sida loogu talagalay. waxaa naga go-an aniga wasaaradda xanaanada xoolaha inaanu helno ambaanu dejino ambaanu qorsheyno ambaanu beerno in calafka xoolaha aynu u kaydin karno ugu yaraan 70% xoolaheenna xilliyada abaarta. runtii anigu wasaaradda xanaanada xoolahaan ciddan isku dhownahay aanu wada ilaalina waxa way horta waa deegaanka. marka deegaan la helo oo deegaankii ku habboonaa marka la helo xoolo daaqi lahaayeen ayay deetana calafkuna u imanayaa. marka runtii deegaanku imaka waxaad moodaa somaliland caqabadaha ugu waaweyn haysta waxa weeyaan cimiladu waxay ku samaysay deegaankii dhibaato weyn oo inay meelihii dhuldaaqsimeedka ahaa runtii ay burburaan ay baabaan beerooshana ku dhaco bohora ay samaysmaan. taasina waxay u baahan tahay runtii in si weyn layskaga tashado qaranka ugu tashado arrintaas aada looga hortago. runtii wasaaradda xanaanada xooluhu markaa sanadka imkaan joognay waxa ugu horreysay aanu sameynay waxaa ka mid ahaa hadda wasaaraddu bal inay yeelato 5 sano strategic plan-ka oo markii hore aanay lahayn. annaguna cidna maaragtay runtii la kaashan khubarada wasaaradda xanaanada xoolaha iyo isku tashiga waxaanu sameynay